Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa walaashin kalsan oo idin leh wax walbo idinta oo wanaagsan seetiin fiicantiin. Haddii aad hore iila joogtay madaxa ii saaran tahay, haddii aad igu cusub tahayna subscribe ii saar. Asxaabta igu soo biirtan waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi saafi ah. maasha Allah tabaarakallah. Caawa waxay ii tahay aniga 4 saac oo rubi dhiman. waxaa rabaa inaan idinla wadaago sheeko yar oo funny ah oo anigu dhacday. Markaa soo dhawaada asxaabta, haddii ay ugu cusub tahay subscribe ii saar. maasha Allah tabaarakallah. Sheekadan waxaa la dhahaa weligaa ma wareertay. had ka hor maxaa dhacday adiga muddo laga joogo bilooyin. waxaa aaday dhakhtarka maqaarka. marka dhakhtarka maqaarka aado waxaa i raacday gabar abaayadee waa baxnay dhakhtarkii markaa tagnay waxaa rabay dhakhtarka maqaarka. marka dhakhtarka maqaarka rabay meeshan dhaqaatiir badana ka shaqeyso, dhakhtarka indhaha, dhakhtarka maqaarka, dhaqaatiir badana ka shaqeyso. marka wiilkii nambarka noo gooynayo oo dhakhtarka oo fadhigi meesha nambarka laga gooyo wuxuu noo gooyay dhakhtarka indhaha, anagana waxaa rabnaa dhakhtarka maqaarka. marka aniga ma fiirinin warqadii waa iska qaatay, waa iska fadhiistay. marka qof walba moobilkeeda ku mashquushay. markii laga joogo muddo saacad iyo bar hal saac iyo bar waxaa dhacday abaayadii waxay dhahday nambarkii meeqoo maraa noo fiiri camal. markaasaa haddii aan fiiriyey dhakhtarka indhahaaba noo jaranbo, dhakhtarkii maqaarka nooma jarno. waa baxa wiilkii u tegay waxaa dhahay waryaa maxaa noola goynay, maxaasas noogu galay. wiilkii ku qeydiyay waxaa dhahay 2 saac ku dhawaada meesha fadhinaa maxaa noola gooyay. waa ku qeydiyay wiilkii balaa. marka okay oo dhahay iska raali noqda, qaladaa dhacay camal. markaasoo warqad kale ii soo jaray. marka dhakhtarkii maqaarka haddana wuu yahay laakiin magac nino haddana igu soo qoray meesha maxamuud hebelow. haddana ana waa iska soo qaatay meesha iska soo fadhiistay korkaa saartay moobilkii iskaga mashquulay. marka haddana hal saac bar kale meesha fadhiyay. abaayadii waxay dhahday noo fiirihee qoraxda bay dhacaysaa. haddana dhakhtarka wuxuu soo fadhiisanaya adiga casir bacdal casir uu soo fadhiisanaya, galab loo fadhiistaa, maqribkii oo ka baxaa meesha. dhaga markaa meeshii nambarka fiiriyay haddana waxaaba igu qoranba magac nin haddana ka daran. alla lugooyadan maxaa maanta bismillaahi waa u laabta haddana. waryaa waxaan dhahay haddana magac ninaa meesha igu qortee ani ma ninaa noqon. adi waxaan dhahay anugu ma ninaa isku bedela. haddana maxaa dhacay haddana dhib badanaa wuxuu igu darnaahaya miyaa waa fahmi waayo. markaasoo haddana markaas kadib oo haddana 11 saaca la joogaabo xilliga dhakhtarka shaqada ka bixi lahaa lasii maraa lugooyo. markaas kadib oo haddana nambarkii noo saxay. markaasaa dhakhtarkii oo shaqada ka bixi rabo oo maqrib aadi rabo tagnay ditoore saas nagu dhacday taariikhda uga sheekeen. markaas wuxuu dhahay okay maqrib waa soo dukanay isuga. dhakhtarkii salaadii aada anagana waa iska soo dukanay. bacdi salaad waa isku soo noqonay dhakhtarkii. markaasaa daawadeeni waxayna ka soo qaadanay maasha Allah. kadib waa soo baxnay. markaa soo baxnay oo xaafadda soo aadnay gaari oo xaafadda noo soo qaadaya waxaa ku sugaynay haddana meel maqaaxi ah. markaasaa waxaa dhacday haddana mid ka daran meeshii markaa imaana maqaaxida irdeeda fadhiisana gaariya sugayna habeen ahayd. marka cishaaba lasii marwayaabo. marka intaa gaariga sugayna meesha fadhiisanay aan waxaa sameeyey marka moobilkeygii bacda daawada waxaa dhigtay miiska horteeda saartay. markaa saartay waxaa dhacday nin oo looga tegay bac gadaasheeda tiilay oo ninka la dhahay ii fiiri wuxuu u maleynayay inaa bacda horteeda taale ee bacdi tahay kalamaana ka dhacday. wuu soo baxay bacdeedoo qaatay. ani waa aamuso waxaas dhan maxaa qalda ninka muwaalan yahay haddii kale meeshooba idinla fadhiyay maxaa qalda ninka tuug miyaa niyadda intaa ka sheekeysanaya afkana ma ka hadlooyaa. markaasaa waxaa dhacday waa fiiriyey ilaa oo inta ka baxo meesha oo fadhiyey oo ku laabto bacdii oo qaatay meeshuu fadhiyey oo fariistay. intuu sii socdo maxaa moobilkii
intoo ninkii sii socda ma dhahoy alaabteydii intee u wadataa iyo waxaas dhan ma dhahoy waa aamusanahay stop. Waxaa dhacday anoo indhaha saan wax uu sii fiirinayay waxay dareentay abaayadii markaasay aragtay in bacdeeni lasii wato markaasay qaylisay markay qaylisay kadib aan ka daba qayliyay waryaha intee u wadataa bacdeena tuug camal wuu fadhiistay asna tuug adduunya waa carar laamo wuu fadhiistay markaasaa intaa hal mar isla istaagna labadeena wax yar aniga ka hormaraa bacdi dhab ka soo siino marka bacdi dhab ka soo siiyey iyo ninkii oo nala murmaayo waxaa arkay wiil dhalinyaro oo wadada maraayo markaas tooreen waa u xireen wiilka mindiya u xireen mindidii oo intuu siibtoo ninkii wuxuu dhahay waryaa gabar waa waxaa hantidaysid gabdho waaye ma ogid miyaa camal xoog ka maqan anoo ugu jiraa wiilka dagaal oo galno darteenu dagaal u galay anagana maxaa nahay ninkii iyo wiilkii markay isdagaaleen wiilkiina madaxeena oo u dagaalamayo inaa kala celino soo lama rabin waa soo laabanay meeshii aa fadhina iska fadhiisano walaa sheekadas da soo xasuusto waa iska qoslaa waa soo laabanay meeshii iska fadhiisanay labadii waa isdagaalooyaan labada nin dagaalka adduunka ka dhacoyaa wixii suuqa meesha jooga laysku soo baxay dadkii kala celiya islaameed wiilkan madaxeenu dagaalka u galay aan maslaxano oo iska baxdhaano ama aan ninkii dagaalkii aan la galno mal rabo walaa taariikh yaroo qosol leh waay waxaa dhahday waa iska fariisanay meesha iska fadhinaa waa albiitar ahayna waa sheekada dagaalka albiitar ka nahaw markaasaa waxaa dhacday wiilashii waa la kala celiyey markii la kala celiyey kadib waa miir soo yeeshtan waxaa taaganahay wiilka darteen oo dagaal u galay nimankii waa la kala celiyey marka dadkii suuqleyda iyo wixii dhanaa isku soo baxeen anagana waa u tagnay waa kala celinay laakiin inta dagaal ku jiray dhowr albiitara ka heen waa fiirsaneynay ilaa dad xabilinanay marka meesha haddana nimankii lagu kala celiyey waa iska soo baxnay gaarigaan oo imaaday iqra meeshaan ka salaamaa waxaa sheekada hadii dhegeysato si fiican ay u qoslay habeenkii ilaa 8 saac waa qoslay ilaa 8 saac sheekadii waa soo bilaabeena waa kusoo ceshanayna waa soo bilaabeena habeenkii ilaa 8 saac qosl lahayn marka iqra meeshaan walaashay macaan meeshaan ka salaamaa okay marka wiilkiina wuu iska baxay ninkiina meeshuu soo fadhiya anaga gaariga noo imaaday gaariga iska soo raacnay haddana waa wareersanahay ilaa hadda ilaa markaas ilaa hadda la iga hadda maane ina marka waa wareersanahay haddaa xaafadda markaa ka bixiyna meel sii mari leen oo biyo ka cabi leen cabitaan waxaa isdhihi lahaybo cabitaanka wax lagugu daray laakiin maxaa dhacday gaarigaan u imaaday gaarigii markaa soo raacnay oo sheekadii aanan kow kasoo bilaaba waa dhameena bismillaah xaafadii waxaa lagu imaaday 5 daqiiqo 5 daqiiqo markuu lagu imaaday gaarigu wuu istaajiyey wiilkii xaafadda ay joognaayaa ma ogi ani marka 5 daqiiqo ku imaaday xaafadii haddana sheekadeeda iska wataani sheekadii bilaaw soo dhamee wiilkii marka sheekadii oo wiil gaariga wata sheekadii waa usoo bilaaba iyo gabadhii la socotay maanta sheekadii uga sheekeeya bas markaas waxaa dhacday wiilkii wuxuu isdhahay gabdhaha meekaa degaan dhamo ilaa hadda wuxuu isdhaha laakiin gaarigiisa hal saaca nus saacad ugu yaraan nus saac waa ku jirnay markaas wuxuu dhahay markii dambe dukaan guriga noogu yaala markaas wuxuu dhahay dukaankiina ciyoomaa la xiraa u dhahay wuunala yaa wuxuu isleeyahay ma idinka degaan anna waa wareersan waxaa isleeyahay xaafadii jiirada loo soo galo qofka loo sii qaada rabaa oo meesha ku sugaa camal waaba wareersanaha gabadhiina ayadana waa ila wareersantaa ayadana oo ana deji ma dhowso xaafadii imaana camal ma dhowso sheekadii ay iga dhageysan wayaan maanta waa usoo bilaaba dhamee waa usoo bilaaba bas waxaa dhacday leedka oo baabuurka waxay arkeen xaafadda cidii leedkii gaarigii cidda arkeen waxay dhaheen marka way imaadeen gabdhihii camal irida ka fura markay saas u fureen ganjeelka wiil oo nala deganaay oo nin weyn oo nala deganaay waxaa ila noqday cunug yar oo 6 jir ah
sheekadan waxaa la dhahaa weligaa ma wareertay wallaahi bilaa daa soo xasuustaa waa iska qoslaa markaasaa wiilkii waxaa ila noqday cunug yaroo 6 jiro waxaa isleeyahay cunugan qofka oo gaariga sugayo ma soo baxo ilaan gurigeena joogaa ma ogi markaasuu wiilka waxaa dhahay marka inaan wareersana oo arko waxaa dhahay dukaankiin ciyoon meel xiraa camal oo dhahay markaas waxaa dhahay yaa dukaankee xaafadda ma joognaa camal aa dhahay waxaa dhahay haa gurigaa joogtii ilaah kugu dhaariye maanta dhan waxaa dhahay gaariga warkii aan ku wadaa dhahay oo maanta dhan hadalkii soo bilaaba dhameena ma waxaan dhahay ii sheegtiin maanta dhan inaa xaafadda imaaday gabadhiyaa weydii maa inaa imaana maa noo sheegtid xaafadda markaas waxay taaganta sheekaa noo wada sheekadii dhan ee albiitarada ka ahayd eeba xiise u heesaabo ee dhegeysanay wallaahi yaab markaas waxaa dhahay wiilka walaalka iskaraal noqo maanta dhan raaligelinaya labada ayaa isbitaalka ilaa xaafadii markaas waxaa dhahay wiil iskaraal noqo walaalka waa soo degnay gaarigaa kasoo degnay marka xaafadda imaaday habeenkii dhan waa wareersanay habeenka maalintaas haddaa isdhihi lahayo meelahaas biyo ka cabi lahaa suuqa iyo meelahaas waxaa isdhihi lahaa waxbaa lagugu daray laakiin kooba marka xaafadda ka bixaynaabo wareer nagu furmabo jadwalka naga qasmabo ninka nambarka noo gooynaya maarataabo jadwalka naga qasay marka sheekada meeshaasay ku eg tahay haddii aad ka heshay like comment share sheekadan anay ugu dhacday waxaa dhahaa weligaa ma wareertay haddii ay sheeko tan lamid ee kugu dhacday waa ila soo wadaagi kartaa maasha allah tabaarakallah aad iyo aad u mahadsantihiin haddii aa sheekadeeda bilow ilaa dhammaad ay dhegeysatane waxaa ku leeyahay madaxa ay saaran tahay aad iyo aad u mahadsan tahay kadibna waxaa soo wadaa sheekooyin iyo qisooyin badan maasha allah tabaarakallah haddii ay igu cusub tahay marka subscribe iyo saar haddaa hol iyo joogtan familka ka mid tahay marka waxaa idin leeyahay inta fiidiyoga mid lamid ah la ku kulmeeno maxaa idin leeyahay horta intaa idin macsalaamaynin kusoo dhawaada sheex kusoo dhawaada sheeko iyo shaxmad ii jirno marka sheexina waa iloowe intaa idin sheekeynayay haddana waxaa idin leeyahay intaa fiidiyoga mid lamid ah ku kulmeeno see you again macsalaamu bye bye marka waxaa ku leeyahay haddii ay sheekadeeda ku qancinin xatee yaa walaasha haddii aa ku cusub tahay subscribe u saar like u saar commentina kasoo bixi qiso tan oo kale haddii ay haysatidina ila soo wadaag maasha allah aad iyo aad mahadsantihiin haddana waxaa idin leeyahay caafimaad cimri dheer iyo cibaado suuban inta dhimata allah u naxariisto inta xanuunsanne allaha caafiyo inta dhaawacana allah u booga dhayo maasha allah tabaarakallah bye bye